maansadani waxa la yiraahdaa dhibkaaga wuxuun ka baro waxa la yiri ninka jaahilkii dhagax albaabka yaala laba jeer buu ku kufaa markuu soo galayna uu ku kufaa markuu sii baxayna uu ku kufaa way garashadu ma oranayso iska hor qaad sidaa darteed qof kasta hadduu dhacdooyinka noloshiisa soo maraya hadduu ka faa'iideysanayo waxyaabo badan oo ku soo noqnoqdaan had iyo jeer soo gaadheen waayahay maansadu waxay oranaysaa dharaarba wixii yimaad dhambaal weeye baleeg xikmadda ku dhawaabanoo duruuftu waxbay dhigtaaye dhibkaaga wuxuun ka baro waanada dhiilkeeda tolo ilduufku halkuu ku dhigay mar kale dhayal ha ugu lumina dhugmiya ulahaw garaad aqoonta ku dhaadi kara dabkiiyo dhamacdii shalay dhammays noqon waa dadkuye aadmiga ruux kaaga dhow dhexdiinna wixii yimaad dhaliil qura ha uga tegin qof aad isku wanaagsantihiin hadduu ku xumeeyo hal maalin miyaad tuuraysaa uma qalma in la tuuro waa inaad qof kasta oo kuu dhowi inuu yahay qaldami karo oo qaladka insaan u ah waa inay kugu seef garaysnaato haddiise maalin walba ninka kugu qaldama aad tuurto kani wuu qaldamay iga tuur kani wuu qaldamay tuur kan kale iga dee gaadhigaad saarantahay waa laga wada tegayaa wallaahi waayahay dhammays noqon waa dadku iyo aadmiga ruux kaaga dhow dhexdiinna wixii yimaa dhaliil qura ha uga tegin bulshadu waa dhowrsanaan dhaqanka ay jeceshahay adoo nafta xuma ka dhaarshay dhigaasama kula macmiil hadhaadin wixii aan baday ha dhowrin waxaan lahayn dhegtaadu xumaangaliyo dhaliil jecel yeehaan dadka qaar waxaad arkaysaa waxaad ku odhanaysaa war hebel muxuu lahaa sida negatifkunbuu kuugu dhigi qaldan waxaas wuxuu u jeeday anigu maan garan wuu buunbuuninba midina xagga wanaagsan buu kaa tusi ha noqonin qof xagga xun wax ka arka ee qalaadaas leedahay wax dhaca weeye nolosha dheeliga waa laga kabtaa ee cakuyo dhimirkaan ogeyn cirkiya meel dheer qofkii dhaayaha ku jalleecayo dhulkaad mahuraan u tahay mar walba dhulkaad mahuraan leeyahay marna waa lagugu aasi haddaad si kasta cirkaa shimbiraha ku nasan waayey way soo degaan soo maaha dhulkaad mahuraan u tahay habaasku ku soo dhiciyo waxaan ka dhex kicin gelgelin inuu dhoobada barkado waxaan dhicin ruuxu qaba qofka bini'aadankii hadduu aamini waayo maanta haddaad kufto oo sideen u kufaa tilayd ka hor inaad kacdaa ka wanaagsan ma waar way dhacdaa waa la kufaayo dee boodhka iska tu inaad halkii sii jiiftaa ka xuntee soo ma markuu waayuhu dhabqiyo xaqiiqada loo dhan yahay isdhuubiddu ceeb male halkay ku dhigtaa duruufi qalbiga laga dhaadhacshaaye samirku waa dhiil gobe dhitaysa markuu xal yahay way dhacdaade sometimes xilli waxaa jirta samirku uu dhiil goba yahay inaad samirtaa ood isdhuubtaa oo waxaa la yidhi ninbaa gabay buu ii sheegay maalin wuxuu igu yidhi ninka maalinkaa siteen laga sad qaadayn sawd gabana baa lagu yidhaahdaa ee laguma soo yaamo buuri ya waxaa kaloo gabaygu tuducyadiisii baanan xasuusana waxaa kale ahayd sayma aar sidaa aduu u dhex jiifo waxaa lagu sanqartirasho mooye miyaa saa loo saama jiidaa buuri haddaad girdidifte ku martid dee uu kuu kici libaaxiso ma meel aar joogana aayar baa lagu maraa buuri ninka maalinkaa siteen laga sad qaadayna sawd gabana baa lagu yidhaha buuri haye dhitayso markuu xal yahay mar bay kugu kalifaysaa inaad samirto mar baa dhaawaca qalbiga dhibkiisaba loo liqaa inaan dhiig meel ka quban waxaa arrin kaa dhabqiya nasteex kugu dherarsanoo dhugmada laga fiican yahay waxaa jira dadku isku wada garasho maaha qof saaxiibkaayoo ku jecel oo raba inuu wax kula qabtaa wax kaa xumayn kara waayahay mar buu dhayalsigu nushaa taliya howlkuu dhaxdo wixii tegay dheeman iyo dhagaxyo luulaba noqdaan dhandhaarra adoo u qabay ammaan dheer iyo qofaad shalay ku dhigtee wacnaa hadduu dhaqan huursan iyo dhaliila ka soo baxaan ha soo dhigin wuxuu falee dhankiisa ka soo mur yidhi dhag xumo weeye ha noqon laba eef dhadhabay qof baad maanta ammaanaysaa berri haddaad caydi ka war shalay waxaa lagu hayaadoo le waar hebel waa nin wanaagsan maantana waan caayayaad way yar adagta ka bara dhacdadaa iyana hubsiimada lagu dhaqmaa
inay dhaxal fiican tahay waa diiniyan qofka inaanad degdegna u wada jeclaanin degdegna u wada nicin waa inaad haddaad jeclaanasana ayar jeclaatid haddaad dhigaysana ayar haddaan dhimirka iyo caqligu tashiga dhuundhuuminayn naftaan u dhabcaali karin xaqiiqda dhabtee ogow waxaa rag isdhaafiyo isdheer yahay aadamuhu nasiib iyo dhiirigelin hoodadu ku dhabaabantee dadaalku markuu dhab yahay waxaad rabta kuma dhibee dhabbada guushaad martaa waxaan dhayalsiga ka korin dhigiisuna quursadaan xilkiisa nimaan dhuganoo weliba isdhigtoon mar qura nolosha isku dhiirigelin haddaanad dharaara iyo habeenna u soo dhafrayn dantaadu ma dhabaraadkee damcu u dheeliya waxaad la dhacdoo ku dhibay dhabtaada inuu dugsado adoon dhanna uga tegayn wakhtiga ku badaa dhib leh inaad dhigto waa muhiim adoo dhamac uga digoo u sheegay xaqiiqo dhaba qofkaan taladaada dhugan ka dheerow kuma rabe qofaan xil u dhabar adkayn waxaad u dirtee dhannaba qofkaan xil ku dhabar adkayn waxaad u dirtaan dhannaba dhaayaha looga jeedinine dantaan laga dhuuman karin horaa laysku dhaafiya waxa aan laga gayoonayn inaad hore u qabato ayaa laysku dhaafiyaa halkaasaan caawa maansooyinkii aan idinku talagalay ku soo xidhayaa